It's important to be aware of these obstacles. It is important waa muhiim to be aware of inaad ka warhayso waxaana wanaagsan kusoo dhawaada youtube-keena caalami official waa muuqaalkeenii hore qaybtiisii labaad. Wow, great, thank you. What would be the second tip? Great, very achieve. Thank you, mahadsanid. What will be second tip? Maxay noqonaysaa talada labaad? waxay noo socda muuqaalkeenii hore qaybtiisii labaad. Soo dhawaada asxaabta ku cusub youtube-keena. I'm not only providing tips to improve your English, but also highlighting the challenges that you might face during your English learning journey. waxay tiri gabadhii kalena I'm not only providing tips kaliya aanu ma bixiyo talooyin to improve your English san Englishtaa sare ugu qaado but also laakiin sidoo kale highlighting waxaan ku iftiiminayaa the challenges dhibaatooyinka ama carqaladaha you might face laga yaabo inaad wajahdo during inta lagu guda jiro your English learning journey safarkaaga barashada luqadda. It's important to be aware of these obstacles in order to overcome them. waxay tiri it is important waa muhiim to be aware of inaad ka warhayso these obstacles carqaladahan ama dhibaatooyinkan. ereygii hore ee challenges iyo obstacles waa laba erey oo isku micnaa. to be aware of inaad ka warhayso these obstacles carqaladahan in order to si aad overcome them uga guulaysto iyaga. ereyga overcome waa ka guulaysi waa dhib ku haystay waad ka guulaysto. I want to overcome a lot of things. waxaan doonaya waxyaaba badan ka guulaysto And make progress in your language skills. and make aan ka sameeyo progress horumar your language skill xirfadaada luuqadeedna aan horumar ka sameeyo. Of course, it's equally crucial to know the issues to make the learning process smooth. waxaa tidhi of course dabcan bay tidhi it is equally si la mida crucial waa muhim. ereyga crucial iyo ereyga importantna waa isku mid waa isku hal erey micnahay wada leeyihiin waa muhiim. it is crucial waa muhim bay tidhi to know inaad ogaado the issues oo ay ka wado dhibaatooyinka inaan ogaado to make saan uga dhigo the process habka learning the process of learning habka dhigashada uga dhigo smooth mid aan dhibaato lahayn oo markaa aan feeling a bit pleasant aan ku dareemaya raaxo saan uga dhigo process of learning habka dhigashada aan uga dhigo mid aan dhibaato ku dareemayn. waa muhiim inaan ogaado dhibaatooyinkana. waxaad ogaatay ereyga issue iyo ereyga problem inay isku micno yihiin. ereyga loo yaqaan Smooth. The second problem that people often face while learning English is the fear of making mistakes. waxay tiri the second problem dhibka labaad ee people often face badanaa dadku wajahaan is waxa weeye fear of ka cabsiga ay ka cabsanayaan making mistake inay khaladaad sameeyaan